السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو كنال قبوشيتس وقتك وانا رشادا حضيعين وشيء قوقالي سنة هيساتو وانا شيء قويني هنا المال قشرتو وانا رشادا وادون كاغا وانا جوغيتان كاغا يا مستقبل كاغا لوميد اللومينيسا waxay ka dhigan tahay adiga oo noloshaada lumiyay oo ku gabood falay himiladaadii hankaaga. Nabi Maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatay wuxuu xadiis ku yiri waqtiga ayaa hadlaya maalin walba isaga oo leh in aadamow anigu waxaan ahay maalin cusub camalkaaga marag baan ka ahay iga faa'iideyso ma soo noqonayo ilaa qiyaamaha mooye waqtigaaga ula dhaqan si dhab ah oo go'aan adag leh oo awood leh inaad ka xorowdo khuraafaadka odhanaya waqtigu filan ma haysto waan mashquulsanahay waa arrinka ugu horeeya aad ku hanan karto nolol habaysan iyo ka faa'iideysashada wacan ee waqtigaaga iyo noloshaaba si guud ahaaneed. waqtigu waa shayga ugu qaalisan ee nolosheena inkastoo aan ku takhasusnay dayacaadiisa iyo lumintiisa inagoo aan ogeyn inaan nahay qaar nafteena sidaa ku dilaya waayo waqtigu waa noloshii oo dhan. waxa jira khuraafaad bulshada dhexdeeda aad ugu fiday waqti ma haysto waxaan arkaynaa mid odhanaya maalin baan heli doonaa waqti igu filan si aan u dhamaystiro wixii iga qabyo ah maalin baan heli waqti aan fasax qaato maalin baan heli waqti aan reerkayga la qaato maalin baan heli waqti aan kitaabka ku akhriyo ama ciyaarta ku ciyaaro. haddaba mushkiladu ma tirada saacadaha ee aan haysano ayaan inagu filnayn mise mushkiladu waxay tahay innaga ayaan waqtigeena nidaamsan si aan uga faa'iideysano. waxa la isku waafaqsan yahay inaan dhammaanteen aan haysano 24 saacadood maalintiiba sida qaniga faqiirka ka faraxsan ka murugaysan ninka maalqabeenka ah iyo ka xashiishka guraba inkastoo haddaba aan wadaagno haysashada waqtiga qaaliga ah laakiin waxaan ku kala duwannahay sidaan uga faa'iideysano. cilmi baadhis uu sameeyay Michael Furiono waa khabiir ku takhasusay maareynta waqtiga oo Mareykan ah daraasadaas oo ku qaadatay 20 sano wuxuu ogaaday in qofka caadiga ah uu waqtigiisa u bixiyo sida soo socota 7 sanadood suuliga 6 sanadood miiska cuntada 6 bilood suutaanka calaamadaha leedhka gaadhiga hagta 120 saacadood nadiifinta ilkaha. baaritaanka uu sameeyay Furiono qofku maalinkii wuxuu xaaskiisa la sheekaystaa 4 daqiiqadood daqiiqad nuskeed caruurtiisa ayuu la qaataa. inagoo haddaba ka duulayna daraasadan waxaan leenahay ruuxa cimrigiisu gaadhay 80 sanadood oo kaliya 240 saacadood ama 10 maalmood ayuu caruurtiisa la qaataa. maxaan uga daleynahay daraasadan aan soo sheegnay waxaan jecelahay inaan caddeeyo mushkilada dhabta ina haysata ma aha waqti la'aan ee waa maamul xumada nafteena ka faa'iideysi la'aanta waqtiga iyo qabsasho la'aanta wixii munaasibka ahaa inaan qabsano. ka xorow khuraafaadka odhanaya waqti ma haysano waa shayga ugu horeeya aan doonayno inaan nafteena iyo nafihiinaba ka xoreyno taasoo inoo horseedaysa nolol habaysan iyo ka faa'iideysi wacan oo waqtigeena ah. arrimaha lumiya waqtiga dhammaan ilbaxnimooyinka ummadaha oo dhan waxay isku raaceen ahmiyadda waqtiga. dhammaan falsafadiyaqaanada iyo aqoon-yahankuna waxay ka digeen beerdaraynta waqtiga. diinteena suubanna waxaan arkaynaa iyadoo ina faraysa inaynu ka faa'iideysano waqtigeena. in Nabi Maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaad inuu si adag uga digay khatarta ay leedahay luminta waqtiga sida qowlkiisa ku cad 2 nimco dadka intooda badan ay ku degan yihiin waa caafimaadka iyo firaaqada. wuxuu uga jeedaa inay jiraan 2 nimco Ilaahay aadamaha ku manaystay laakiin aanu uga faa'iideysan sidii loo baahnaa waa caafimaadka iyo waqtiga firaaqada ah. ma jiro ruux caaqila oo waqtigiisa si fudud ku lumiya maxaa yeelay taasi waa noloshiisii oo uu dilayo ama se waa sida uu yiri caalimka weyn ee Xasan al-Basri in aadamow waxa tahay maalmo la ururiyay marka maalin tagto adiga barhka ayaa tagay. caaqilku waa ruuxa waqtigiisa si nidaamsan uga faa'iideysta oo diida inuu arrimo ama faa'iido lahayn waqtigiisa ku lumiyo cimrigiisana ku dayaco. haddaba haddii waqtigu yahay nolosheena waxa ugu qiimo badan haddana maxay dadka intooda badani waqtigooda u lumiya. marka aan eegno dadka waaqicooda waxaan helaynaa in 2 arrimood door weyn ka ciyaaraan luminta waqtigooda waana habdhaqankooda iyo caadooyinkooda. ugu dambeyntii daawade waxaan filayaa inaad wuxuu ka fahantay inuu waqtigaagu yahay noloshaada ka faa'iideyso. wabillahi tawfiiq.